injiilka sida Luukas u qoray cutubka 24aad maalintii ugu horeysay ee toddobaadka goortii waagii bariyay ay xabaashi yimaadeen iyagoo wada dhirtii udgooneed oo ay diyaar gareeyeen oo waxay arkeen dhagixii oo xabaashi laga girangariyey markaasay galeen laakiin kama ay helin meydkii rabbiga ciise waxaa dhacay intay waxaas ka sii walwalsanaayeen in laba nin oo dhar dhalaalaya sitaa ag taagnaayeen dumarkii iyagoo cabsanaya ayay wejigooda hoos ugu fururiyeen dhulka markaasay ku yidhaahdeen iyaga maxaad ka nool uga dhex doondoonaysaan kuwii dhintay isagu halkan ma joogo laakiinse wuu sara kacay xusuusta siduu idinla hadlay intuu galadi joogay isagoo leh wiilka aadanaha waa in loo gacan geliyo dembiilayaasha oo isku tallaabta lagu qodbo oo maalinta saddexaad uu soo sara kaco markaasay hadalladiisii xasuusteen wayna ka soo noqdeen xabaashii oo waxaasoo dhan ayay u sheegeen 12 iyo kuwii kale oo dhan waxay ahaayeen maryantii reer magdala iyo yo'ana iyo maryan oo ahayd yacquub hooyadii dumarkii kalena oo la jiray ayaa waxaas rasuuladii u sheegay hadalladaas waxay la noqdeen wax aan macno lahayn wayna rumaysan waayeen laakiin butros ayaa kacay oo xabaashiga u orday markaasuu foorarsaday oo wuxuu arkay maryihii kulligood oo meel yaal markaasuu ka tegey oo gurigiisii ku noqday isagoo ka yaaban wixii dhacay laba ka mid a iyagu waxay maalintaas qudheeda ku socdeen tuulo la odhan jiray Emmaus tan Yeruusaalem u jirtay 60 istaadiyon waxay ka wada hadlayeen wixii dhacay oo dhan oo waxay noqotay intay wada hadlayeen oo wax isweydiinayeen in ciise qudhiisu u soo dhawaaday oo la socday laakiin waa la indhasaabay si aanay u garanayn markaasuu ku yidhi maxay yihiin hadalladan aad isku haystaan intaad socotaan wayna istaageen iyagoo fool qulubsan midkood oo Kleobas la odhan jiray ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma adigoo keliya oo Yeruusaalem degan oo aan ogeyn wixii ayaamahan meeshaas ka dhacay wuxuu ku yidhi wax maxaya waxay ku yidhaahdeen wixii ku saabsanaa ciisihii reer Naasareed kii ahaa nin nebi ah oo xoog u lahaa wax falniin iyo hadala ilaah iyo dadka oo dhan hortooda iyo sidii wadaadada sare iyo taliyayaasheenii ugu dhiibeen in dhimasho lagu xukumo oo isku tallaabta ayay ku qodbeen laakiin waxaanu rajaynaynay inuu yahay kan Israa'iil soo furan lahaa laakiin waxaasoo dhan weliba maanta waa uu maalintii saddexaad markii ay waxaasoo dhami dhaceen weliba dumar annaga naga mid ah ayaa naga yaabsiiyey kuwii aroortii hore xabaashii tegey goortii ay meydkiisii waayeen ayay yimaadeen iyagoo leh waxaanu weliba aragnay muuqad malaa'igo kuwa yidhi wuu nool yahay qaarkood oo nala joogay ayaa xabaashii tegey oo waxay arkeen sidii dumarku yidhi laakiin isagase ma ay arkin markaasuu ku yidhi nacasyayahow oo qalbigoodu ka raagay inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammu ay ka hadleen masiixa miyaanay waajib ku ahayn inuu waxaas oo dhan ku silco oo uu ammaantiisa galo markaasuu ka bilaabay muuse iyo nebiyada oo dhan qorniinka oo dhanna ayuu u macneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa goortaasay ku soo dhowaadeen tuuladay ku socdeen isaguna wuxuu iska dhigay mid sii fogaanaya laakiin way oggolaysiiyeen iyagoo leh nala joog waayo maqribku waa dhow yahay maalintiina durba waa dhammaatay markaasuu la galay inuu la joogo waxaa dhacay kolkuu cunto ula fadhiistay inuu kibista qaaday oo barakadeeyey oo intuu kala jebiyey ayuu siiyey markaasaa indhahoodu furmeen oo isagay garteen wuuna ka libdhay markaasay isku yidhaahdeen miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidka inagula hadlay iyo intuu qorniinkii inoo furayey saacaddaas qudheedii ayay kaceen oo Yeruusaalem ku soo noqdeen waxayna arkeen 12 iyo kuwii la jiray oo isu ururay iyagoo leh hubaal sayidku waa sara kacay oo wuxuu u muuqday Simoon iyaguna waxay ka warrameen wixii jidka ku dhacay iyo siday isaga ugu garteen kala jejebintii kibista intay waxyaalahaas ku hadlayeen isaga qudhiisii ayaa dhexdooda taagnaa oo wuxuu ku yidhi nabadi ha idinla jirto laakiin way argagaxeen oo cabsadeen waxayna u maleeyeen inay ruuxaan arkeen markaasuu ku yidhi maxaad u naxaysaan fikirro maxay qalbigeenna uga kacayaan gacmahayga iyo cagahayga arka inaan anigu isagii ahay itaabta oo arka waayo ruuxaan jidh iyo lafo male sidaad igu arkaysaan inaan leeyahay goortuu waxaas yidhi ayuu tusay gacmihiisa iyo cagihiisa
intay yaabsanaayeen iyagoo aan weli rumaysan farxad aawadeed wuxuu ku yidhi halkan wax cunnaa ma ku haysaan kolkaasee waxay siiyeen kalluun duban markaasuu qaaday oo hortooda ku cunay wuxuu ku yidhi kuwani waa hadalladaydii aan idinkula hadlay intii aan weli idinla jiray waa inay noqdaan wax walba oo sharciga muuse iyo nebiyadii iyo sabuurada laygaga qoray oo igu saabsanaa markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan qorniinka wuxuuna ku yidhi sidaasay u qoran tahay waa inuu masiixu sulco oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco iyo in toobadii iyo dembidhaafka magaciisa lagu wacdiyo quruumaha oo dhan laga bilaabo yeruusaalem idinkuna waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin oo bal eega waxaan idiin soo dirayaa ballankii aabbahay laakiin magaalada jooga ilaa xoog laydinka huwiyo xagga sare markaasuu iyaga kaxeeyey ilaa meel ku dhow baytaniya oo intuu gacmihii kor u qaaday ayuu barakadeeyey waxaa dhacay intuu barakadeynayey inuu ka tegey oo waxaa kor loogu qaaday samada markaasay isaga caabudeen oo waxay yeruusaalem kula noqdeen farxad weyn oo goor walbaba macbudka ayay ku jireen iyagoo ilaah ammaanaya